aanan ciidamada la shaqeeynin amni lama heli karo cadawgan daaqeygana sidaan u taagnaanaya ummadeena waa baaba'aysa si ummadeena u badbaadino waa in ciidamada nabadgelyada la shaqeeya saacad kasta iyo waqti kastaba robotka loo gudbiyo si wax loo qabto aad u maasantiin ururka al-shabaab ayaa lagu eedeeyay falkaasi inay ka dambeeyeen xilliga qaraxa uu dhacay ayaa la sheegay in guriga aanay ku sugneen mas'uuliyiinta guriga deganaa oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqo halka la sheegay taliye ku-xigeenkii hore ciidanka booliiska Janaal Mukhtaar Afrax oo ku maqnaa xero ciidan oo ku taala magaalada Beledweyne inta badan gurigan ayuu tagi jiray dhinaca kale wararka aan ka helino degmada Afgooye ayaa waxa ay sheegayaan dabley hubeysan duhurnimadii maanta inay toogasho ku direen 3 askari oo ka tirsanaa ciidanka militariga Soomaaliya iyo haweeney xaamilo ahayd dilalkan ayaa ka dhacay suuqa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose sida ay ku warameen dad goob joogayaala ciidanka ammaanka ayaa tagay goobta ay dilka ka dhaceen markii ay baxsadeen dableyda dilalka geysatay waxaa la sheegay aaga ay dilku ka dhaceen meel ku dhow inay ku sugnaayeen ciidamo booliis ah oo aan falkan ku bixin hayeeshee markii dilka uu dhacay kadib goobta ay tageen meydadka askarta iyo haweeneyda ayaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho si baaritaano dheeri ah loogu sameeyo degmada Afgooye oo ay ku sugan yihiin ciidanka dawladda iyo kuwa koonfur galbeed ayaa xilliyada qaar waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo ay geystaan al-shabaab iyo kooxda Daacish ee meelo kamid ah Soomaaliya ka dagaalama isbedel ayaa lagu sameeyay taliyaasha qaar ee qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Tifow taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa isbedel waxa uu ku sameeyay saraakiisha taliska ama talisyada qaybaha ciidanka xoogga dalka ee gobolada dalka Soomaaliya General Indhaqarshe ayaa Sareeya guud waxa uu u magacaabay Tawane Ahmed Maxamed taliyaha qaybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka abaanduulaha qaybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaana loo magacaabay Sareeya gaashaanla sare Cabdisalaam Aadan Ahmed waxa sidoo kale wareegtada ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilalka looga qaaday taliyaasha qaybaha 27aad ee ciidanka xoogga dalka qaybta 6aad iyo qaybta 21aad iyo qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka wareegtadan ayaana sidoo kale waxaa lagu magacaabay taliyaasha qaybaha 7aad 6aad 21aad iyo 54aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2018 waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo siyaasadeed mid amni iyo mid horumar idaacadda Risaala ayaa maalmahan idiin soo baahinaysay qaybo kala duwan oo warbixino taxane ah oo aan dib idinkugu xusuusinaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ka dhacay Soomaaliya Maxamed Cabdi ayaa warbixintan soo socota oo ah qaybta afraad ku eegaya qayb ka mid ah dhacdooyinkii Soomaaliya ka dhacay kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta afraad taxanaha dhacdooyinkii ugu weynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya 2018 maalin sabtiya 16 Juun 2018 booqasho aan hore loo sii shaacin ayuu subaxnimadii hore ee maalintaasi ku yimid magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaana soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulan ay albaabada u xirnaayeen oo labada mas'uul ay yeesheen ugu dambeyn waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay mas'uuliyiinta labada dawladood ee Itoobiya iyo Eritrea si gaar ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliya waxaana ay sheegeen in ay ku heshiiyeen dhowr qodob oo xitaa uu ku jiro in labada dal ay yeeshaan isdhaxgal bulsho laakiin heshiiska ayaa marka la eego waxa ugu xasaasisanaa labada dawladood oo isku afgartay maalgashiga ilaa 4 dekadood iyo dhismaha wada laami ah maalin talaadaha Juun 26keeda 2018 madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi
ayaa khudbad ka jeediyey munaasabad lagu maamuusayey 26 juun oo ku beegneed markii ay gobollada waqooyi ka xoroobeen gumaystihii ingiriiska islamarkaana eedeen u jeediyey dowladda Soomaaliya. muuse biixi oo ka hadlayay codsiga dowladda Soomaaliya ee beesha caalamka looga dalbaday in la joojiyo kaalmada iyo deeqaha la siiyo Somaliland ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dagaal iyo cunaqabateyn ku hayaan sida uu hadalka u dhigay dadka reer Somaliland. maalin Jimcaha 29 Juun 2018 mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dad ka badan 80 qof laga soo musaafuriyay dalka Mareykanka oo ay yimaadeen magaalada Muqdisho garoonka diyaaradaha aadan cadde waxa ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya. afayeenkii xilligaasi wasaaradda amniga Cabdilcasiis Cali Ibraahim xildhibaan ayaa sheegay in 83 qof oo laga keenay Mareykanka ay soo gaareen magaalada Muqdisho kadibna ay xaaladda dadkaas la wareegtay dowladda Soomaaliya. dadka saarnaa diyaaradaas ayaa ku dacwooday in la xirxiray oo si xun loola dhaqmay intii lagu guda jiray musaafurintooda. maalin Sabti ah Juun 3keeda 2018 duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Siinka Dheer waxaa qarax lagula eegtay gaadiid ay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aaso waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre iyo gudoomiyaha deegaanka Ceelasha Biyaha Ayaan Xasan. waxaa sidoo kale jiray dhaawacyo soo gaaray mas'uuliyiin kale oo safarka ku wehelinayay. maalin Arbacaa Juulaay 4teeda 2018 waxaa dagaal u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ah oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo Caad oo dhaca koonfurta gobolka Mudug. waxaana dagaalkaasi Maleeshiya deegaanka ah iyo dagaalyahanada Al-Shabaab u dhaxeeyay uu qaatay saacado badan. khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay ayaa wararkii soo baxayay waxa ay sheegayeen in uu gaarayay ilaa iyo 10 labada dhinac ah, iyadoo dagaalka uu salka ku hayay amar ay Al-Shabaab dadka deegaankaas ku soo rogtay oo quseeyay inay ku soo wareejiyaan wiilashooda inta ka weyn da'da 8 sano. Sabti Juulaay 7deeda 2018 ugu yaraan 10 ruux oo ay ka mid ahaayeen shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha, askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo kooxihii weerarka geystay ayaa ku dhintay weerar ismiidaamin ahaa oo lagu qaaday ekis xaruntii hore ee Oto isla markaana ay deganaayeen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. ciidanka ammaanka ayaa ugu dambeyn waxay sheegeen inay soo abjareen weerarka xarunta ay wada degan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga ay Al-Shabaab ku qaaday. xarunta ayaa markii hore lagu weeraray gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, iyadoo dabley hubaysan oo gaarayay ilaa 3 dagaalyahan ay gudaha u galeen. waxaana israsaaseen muddo saacadaha socotay kadib ay ciidamada ammaanka ku guuleysteen inay dilaan 3 dagaalyahan oo ka mid ah ururka Al-Shabaab ee galay xarunta. Sabti 14 Juulaay 2018 laba qarax oo isxiga ayaa ka dhacay beerta nabadda oo aan sidaas uga fogeen hotelka Iswa ee magaalada Muqdisho iyo isgoyska Imbratoriya Ceelgaab. qaraxyada kadib waxaa mar kaliya isqabsatay rasaas culus oo dhex martay ciidamada militariga ilaalada ka haya madaxtooyada iyo kooxdii hubaysnaa. waxaa weerarkaasi oo la sheegay inuu ahaa mid qorsheysnaa raggii hubaysnaa u suurtageli weysay in ay soo dhaafaan birta kontaroolka, iyadoo qarax labaad isla maalintaas waqti ku dhow qaraxii hore uu ka dhacay meel ku dhow MCH-ka Ceelgaabta, kaasi oo sababay khasaaro u badan dad rayida. khamiis 26 Juulaay 2018 wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaa xilka wasaaradda waxbarashada looga qaaday wasiirkii hore ee wasaaraddaas Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. wareegtada ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xilka wasiirka wasaaradda si ku meel gaar ah uu sii hayn doono wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Maxamuud Cabdi Jaabir. xilka qaadistiisa ayaa timid kadib markii maalin ka hor marka xilka laga qaaday uu wasiirku warbaahinta ka sheegay inuusan aqoonsan barashada. axad Juulaay 29keeda 2018 waxaa isbedel lagu sameeyay qaab dhismeedka hay'adaha nabadgelyada gobolka Banaadir, waxaana la baabi'iyay taliskii nabad sugidda ee muuqday ee gobolka Banaadir,
iyadoo taliskii nabad sugidda lagu biiriyey ciidanka booliiska ee gobolka banaadir waxaana taliyihii nabad sugidda gobolka banaadir saadiq john loo bedelay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka banaadir iyadoo xilka laga qaaday taliyihii hore ciidanka booliiska ee gobolka banaadir axmed xasan maalin qorshaha cusub ee ciidamada nabad sugidda gobolka banaadir loogu bedelay inay noqdaan booliis ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay tahay mid ay ku doonayso inay ku adkayso ammaanka waxaana isla xilligaasi magaalada laga saaray ciidamadii loo yaqaan xasilinta oo fariisimo ka sameystay ibara control gudaha magaalada Muqdisho Juulaay 3keeda 2018 booqasho 3 cisho qaadatay iyo kulamo ku dhexmaray magaalada Asmara hogaamiyaasha labada dowladood ee Soomaaliya iyo Eritrea maxamed cabdullaahi farmaajo iyo Isayaas Afwerqi ugu dambeyn waxa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warmurtiyeedkii qodobada ugu waaweynaa ka mid ahaa kow in Soomaaliya oo ku taal goob istiraatiiji ah ay leedahay kheyraad tiro badan oo isugu jira aadami iyo kuwa dabiici ah isla markaana muhiim ay tahay in la ilaaliyo madaxbanaanida Soomaaliya lagana wada faa'iideysto labo in Soomaaliya iyo Eritrea ay dadaal u galayaan sida ay u samaysan lahaayeen iskaashi taabanaya dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada dhaqanka difaaca iyo amniga saddex labada dal waxa ay yagleeli doonaan xiriir diblomaasiyadeed iyagoo isdhaafsanaya danjirayaal sarana u qaadaya ganacsiga maalgashiga dhexdooda ah sidoo kalena isweydaarsanaya fursadaha la xiriira waxbarashada iyo dhaqanka qodobka afraad oo laga soo saaray warmurtiyeedkaas waxa uu ahaa Eritrea iyo Soomaaliya inay si wadajir ah uga howlgalayaan sida loo horumarin lahaa nabadgelyada xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka Khamiis August 2018 dowladda Djibouti ayaa cadeysay mowqifkeeda la xiriira hadal uu madaxweyne Farmaajo ka jeediyey magaalada Asmara kadib booqashadii 3 cisho ahayd oo uu ku tagay magaaladaasi safiirka dowladda Djibouti ee Soomaaliya aadan xasan aadan ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Eritrea sida uu hadalka u dhigay xoog ku haysato qayb ka mid ah dhulka Djibouti gaar ahaan jasiiradaha Dumera iyo 10 maxbuus oo reer Djibouti ah safiirka ayaa intaa ku diray in war laga naxo uu ahaa hadalkii madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in cunaqabateynta laga qaado wadanka Eritrea axad 5 August 2018 qarax ayaa lagu weeraray baar ku yaal wadada Makka al-Mukarrama oo lagu magacaabo Soomaaliya waxaana ku dhimatay 4 ruux oo ay ka mid ahaayeen caruur halka tiro ka badan 7 ruux kalena ay ku dhaawacmeen maamulka gobolka Banaadir afayeenkooda Saalax Xasan Cumar ayaa warbaahinta u sheegay in laamaha amniga ay baaritaan ku hayaan dadkii ka dambeeyay weerarkaas Khamiis August 9keeda wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa shaqada looga joojiyay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtaar Mahad Daawud wareegtada ra'iisul wasaaraha oo uu warbaahinta u akhriyay agaasimaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa timid kadib markii muran xoogan uu soo kala dhex galay hantidhoorka guud iyo wasiir ku-xigeenka oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo lunsasho hanti dadweyne isniin 13 August 2018 wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Cusmaan Saalax iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana ay kulan la yeesheen madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo socdaalka wafdiga Eritrea ay ku soo gaareen magaalada Muqdisho ayaa daba socday safarkii madaxweyne farmaajo wafdigu hogaaminayo ay ku tageen magaalada Addis Ababa dabayaaqadii bishii Juulaay ee 2018 3 August 2020keeda 2018 ciidanka amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa xiray Daahir Mire Ducaale oo sheegtay in loo magacaabay taliyaha hay'adda sirdoonka ee Jubbaland war ka soo baxay taliska hay'adda Nisa ayaa lagu sheegay in shakhsigan uu watay warqado been abuura isla markaana ay ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen xabsigana loo taxaabay maalin Sabtida August 25keeda taliye ku-xigeenka hay'adda dambi baarista dowladda Soomaaliya Bashiir Nuur Geedi ayaa warbaahinta u sheegay in la xiray ku dhawaad 28 ruux oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda taliye ku-xigeenka ayaa intaa ku daray in faldambiyeedka lagu eedeynayo xubnaha xiran ay qayb ka tahay arrimo la xiriira musuqmaasuq xilligaas oo ay dardar ku socotay dadaalada dowladda Soomaaliya ay kula jirtay ka hortagga musuqmaasuqa
maalin isniina 27 Agoosto madaxweynaha Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium waxaana la sheegay in dawladda Soomaaliya ay bilaabayso qorshaha ballaaran oo lagu howlgelinayo garoonka madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya haatan ay joogto marxalad ay higsanayso dib u dhiska kaabayaasha nolosha iyo soo celinta kaalintii muhiimka ahayd ee ay ku lahayd qaaradda Afrika iyadoo xilligaasi wixii ka dambeeyay wax ka badan 10 sano oo ay amisom deganeed garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium laga salkiciyay guud ahaan dhageystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa qaybta afraad imtixaanaha dhacdooyinka ugu weynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya 2018 qaybta afraad dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay Maxamed Cabdi ayaa inala socodsiinayay qaybo kale ayaa inoo harsan oo dhacdooyinka Soomaaliya oo ku saabsan oo wararkeena iyo barnaamijyadeena aad ku maqli doontaan biri dambe hadii ay baraale uu ka noqdo ugu dambeynna 10 booliis ayaa ku dhimatay 3 kalena dhaawacay ayaa ka soo gaaray weerar gaadma ah oo ay dabley ka geysteen waqooyi bari ee dalka Burkina Faso sida ay sheegtay wasaaradda amniga ee dalkaasi qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga Burkina Faso ayaa lagu sheegay in askarta ay la socdeen koox baabuur ah oo ka aanbabaxday gobolka Tony iyagoo ku sii jeeday tuulo ku dhow magaalo ku taala dalkaasi saraakiisha ayaa ku sii jeeday tuulada Lorini oo ku dhow xadka dalka Mali guud ahaan warkii fiidnimo dhageystayaal oo si toos ah idinkaga imaanayay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho waa naga intaa cidii warkan uu dhaafo waxa ay dib kaga dheehan karaan bogga aan internetka ku leenahay ee ah radio risala.com midnimo